How do we say eggplants in Somali? MashaAllah. حدث كيال لدي عرضنا ما استعمالين يا عدي. السلام عليكم كسر هذا قرية كبيرتيسة. رمضان وعن دونك ميرول بقى كجوكتان وحني رجينا خير عافماد يو safety. I don't know safety of Somali سود الغدها. لكن إن شاء الله waxaa ilaahay hanaga aqbal ramadaanka bisha ramadaanka aan soo galayna insha Allah waa ogtihiin channelkay guriga beertiisa ku saabsan tahay qudaarta si fiican ay u bixaysa isbuucan hadda la soo dhaafay dhan roob naga waalabo laakiin maxaa la dhahaa it made it hard for me to plant outside. So anyways, I wanted to show you a quick update insha Allah. Birmis dambe insha Allah waxaan bilaabi doonaa the Ramadan vlog for my garden insha Allah, and waxaa hadda rabay inaan tuso mirayaal kala noocaan bilaabo. So qalabkaana ujeedin amalana, this is what I use to help grow the lights. So there are different types of vegetables aan bilaabay. Kuwaanayta hadirtan ujeedin there are different types of plants. So kuwaan waxay kala yihiin horta waa ku mahadsantihiin inta on my YouTube community comment igu soo qorteen sawiraan ii soo diray oo pumpkin aan weydiiyay sidee af Soomaali lagu dhahaa bocor ay sheegteen iyo bocor hindi bocor gaduud kulligiin waa mahadsantihiin. So anyways, these are maxaa la dhahaa mirooyinka kala nooc ahayn kuwaan waxaa la dhahaa the Asian Cami, oh my god darbaxam kugu dhuftaa ma ku laadaa ma ku shumiya I don't know nalka igdimise hadeertan waa ujeediin nalkay ka hooseeya nalka kuleel siinaya sida usoo baxaan hoosaana ka waraabiya marka soo meeshaan aan kor u qaadaya. I don't know if you can see this, but like way kastoo way qoyan tahay hoos hadda dhawaan biyo ku shubay kulligood. Kuwaanaytana the clear dough marka isticmaalana waxaa waaye way huurinaysaa carraday huurinaysaa soo mirihii meeshan ku jiro dhan midkaas soo shishay waa ujeediin amalena kuwaanaytana waxaa waaye what is this? I don't remember what is this. hoos kusoo qoraya. So mirayaashaanaytana alxamdulillah hadeertaan they're progressing really well. markii ay diyaar ay noqdaan hadeertaan hawada kuleel banaanka hadee qandac fiican noo ahaan lahayd hadeertaan oo ujeediin maqrib la soo gaaraya meeshaas hadeertaan aan daboole waxyaala igu jiraan qabow caaw soo dhacaya lahay and badana qudaarta markay halkaan la eg yihiin barkoonka dhigaya for saacada yar because hawada guriga iyo hawada banaanka way kala duwan tahay. So waxaa laga rabaa saacadan camal in banaanka aan couple hours inaan caagadahan dhigo sida the outside weather acclimated in noqdaan. So these are the other different types of plants on meesha ku beeray meeshaan inta dhan basbaasa ka buuxo. And so these are Swiss chard, costa kan af Soomaali lagu dhahaa waa umaleyna, and then these are some kale, and then kuwaasiyatana bocor kaleeto waaye iyo onions af Soomaali lagu dhahaa I don't know, but so alhamdulillah these are growing really well. nyaanyadaanaytan meeshaanaytan bilooyin ay meesha ku dhex jirtaan ilaa hadeertaanaytan weli wax ma soo saarin laakiin shalaan waxaan ku arkay meeshaanaytan nyaanyada inay saan soo baxayso 3 miro hadeertaan meesha saaran ubax walba wuxuu isku bedelayay miro yar. waxaa rabay kuwaanaytan waa aragteen amaleyna last time kuwaasiyta waan inta markaan carrada ku beerayay excuse me nalkaa igu badan kuwaanayta markaan beerayay waxaa kaloo nitusay anigoo zipla ku beeraayo waxaana rab inaan hadda nituso sida hadda u egyihiin. Okay, so hadeertaana zipla ka fiiqa so tissue paperka wax culus maaha ma ogtin xididada jaaway ka soo hoos baxeenbo taas waxay ii sheegaysaa waxaana jeclaa markaan aan sidaan aan ku beeraayane aniga bacda anigoo furin waa ujeedaa mirihii inay ma arkino ay soo baxayaan. hadda mirahaanita waxaa waaye these are green beans sawirkoodana waan nitusaya insha Allah. So anyways carra ma isticmaalin waxna ma isticmaalin sidee xididadii hal mar usoo wada baxeen bay maasha Allah. marka aan beeraayo waan inta soo umaleynaya digir caadi ah way kaayeen hadeertaanaytane I just have to be very careful markaan soo siibaayo because xididadii meeshaanayte si fiican ugu sii dhex jiraan so markaan kasoo goynayo I just have to be very careful. So ما شاء الله meeshaasayta ujeediin booska cabaarka bacdu dhamaanaya mogtahay sidaan hadeertaan banaanka hadee qorax fiican ii lahaan lahayd geedkaanayta oops qolofkay kasoo dhacay geedkaanayta banaanku diyaar u ahaan lahay
siday hawada banaanka iyo hawada gudaha u kala geedkaneeta u qabsan lahaay couple hours banaankaasaan u dhigdhigi lahaay kabacdi markaas qoraxda insha Allah ku beeraya carrada ku beeri doonaa laakiin hadeertaan uma eko hawadeena inay soo fiicnaanayso for at least next 2 weeks oo maleena qabowle ku jireena so waxay noqonaysaa caagada waaweyn inaan soo qaado maasha Allah xididka ku yaal leeday carro dhanna ma isticmaalin yaa ciday geedkaneeta bas leeyo galiye meesha every couple days every day وبعدين فراي tissue paper كان تابنايا محلها كبعدي إنا بير له كوينايا مركز that was it شقة بدن كأيق مقالنين أن الميل إفتين لا هوس دقة ماشى صار دقة هبين كنا كان مرمر سدان وإفتين كان سيتسينايا مرمرنا هدي أرب إنا مبوبسيني بعيش أنا توجدين خاص أوفق قجار واي وأنا أجيدا مرك حدث وصباحايا كوانيتنا waxay kala yihiin different types of qare iyo xabxab sida oo kala dhahdeenba so anyways ma sha Allah meeshaanayta si fiican u bixiysa hadii oo cambuulo arab ina cuno galeeydi sidaana ku bilaabi karaa markaas banaanka geenaya markaas maxaa la dhahaa cambuulo kala nooc digirta ma la dhahaa ayadoo kala noocna sidaana ku bilaabaya marka diyaar ay noqdaan dhac hore oo la ordaya so insha Allah this was a quick update. Go away, Cami. I'm working here. So, مشاني هدفتان صفريستي. Update كدير أنا تساوي واقع مشى قدرت إيه ولا طالع. So, مشاني هدفتان وحان بالله different types of vegetables. These are pea لدها. قجاك كل نوع عن بالله أو كان محاوي مرب بدن ملها. So it's like different. It has less seeds. This is محل ده كان في سومالي ما درد بريسين بعرنا ما هنا بعر جديد بعر pumpkin yeah my YouTube gardening family just taught me yesterday or the other day بعر yeah no pumpkin I didn't know that or winter squash or whatever so these are different types of other more vegetables kind of how melon is another kind of a qaraq khala so all of these I don't have a lot of bananki qabo waye arada diyar ma aha like I can start the seeds early so alhamdulillah the last plant arab hadatan inaan mirihi aan sidan aan ku bilaabo waxay yihiin beets oh actually egg, how do we say eggplants in Somali? We don't have a word for it. Okay. Anyways, kanna wan beraya. So these are at least I will have a total of over 20 different types of plants, maybe, inshallah. But I'll keep you posted. So let's finish this guys out. Okay, qarabo, meeshaan ku soo koobaya waxa ugu talagalay kan inuu quick update inuu yahay inshallah. I know isbuucan hadal soo dhaafa wax ma soo saarin. قبو الروبا كجيرنا سبحان الله ماشى عن يقضي جعمها jacket boots وحس أحرحرن لهاي I was like Cami stay away from my plants حاس لها you know just enjoy the weather بستها كان حبهن so إن شاء الله رمضان كريم خير أني رجينا يا عفماد أني رجينا إن شاء الله don't forget to subscribe to my YouTube channel and as I said I will make sure to start shooting a Ramadan vlog about my garden inshallah so وأنا معلن كلا قرابو مع السلامة